qab iyo caafimaad meel walba dunida ka saarantiin biidnillaahi wa biraxmatihi. hadday tahay markii ugu horreysay aad soo booqato channelkan Hillaac Soul, waxaa si xushmad leh kaaga codsanaya inaad subscribe tiraahdo, isla markaana like-tan nagu dhiirigeliso, commentigana aad codsiga kusoo gudbiso biidnillaahi wa biraxmatihi. waxaan rabaa inaan ka yara hadlo dil caawa ka dhacay gobolka Sool, dilkaas oo ah dilkii 85aad iyo 86aad. dilka oo loo geystay lamaane yagleelayay xilligoodii farxadda, arooskooduna uu soo dhawaa biidnillaah, laguna dilay xaafad ka tirsan magaalada Laascaanood, xaafadda oo lagu magacaabo Farxas Kulle. runtii lamaanahaas la dilay waxaa la kala oran jiray Maxamed Maxamuud oo loo garan og yahay Yuluf Guraase iyo marwadiisa ina Xasan Timaacade. runtii Maxamuud Allah u naxariisto subxaanahu wa ta'ala, isaga iyo marwadiisaba gacan ka daran ayaa dishay. jannadii firdowsana Allah hooyaa uga dhiga biidnillaahi wa biraxmatihi. dhammaantiina wada duceeya. Maxamed Maxamuud Allah u naxariisto wuxuu ka mid ahaa ciidankii ka goostay jabhadda argagixisada SNM, una goostay jabhadda dib u xoreynta gobolada SSC. waxaana halkaa ku dilay dabley hubeysan. dableydaas kulley haybteeda anagu waxaanu saari doonaa jabhadda argagixisada SNM. markaanu idin leenahay jabhadda argagixisada SNM hala yaabin, maxaa yeelay argagixisada ka jirta koonfurta Soomaaliya iyagaa dadka dila, madaxa u duubta. hawshii ay koonfurka wadeen isla hawshiiba SNMna waxay ka wadaa gobolka Sool. halkaa waxaa inooga caddaan karaa inuu xiriir ka dhexeeyo. run ahaantii Maxamed waxaan oran karnaa laba siba waa loo dilay. ta koowaad fariin loo dirayo askarta kasoo jeeda gobolada SSC haddeer ku sugan jabhadda argagixisada ah ee SNM. fariintaas oo ah ninkii ka goosta ama ka baxa jabhadda SNM in uu dilkaas oo kale mutaysan doono. talabaad ayaan soo oran karnaa waa loo dilay Maxamed Maxamuud, waxay noqon kartaa in la rabo dib laga bogsooday oo laga reestay oo nabad iyo caano ka dambeysay inay dib u soo abaabulaan una soo bilaabaan, maadaama ay ku fashilmeen shirkii jaamacsiyaad iyo gaariyaha laguna kala kacay. dhibta ay rabaan inay dib u soo bilaabaan oo ah colaadii ay ka bogsootay beelaha la isku yiraahdo Baha Khayr waa Qiyaad iyo Bahar Same, maadaama uu Maxamed ahaa nin khayr cabdi ah. horena ay iskugu dayeen in badan inay soo celiyaan, balse lagu fahmay eena suuro gali weyday. tolkayguna aad buu uga mahadsan yahay taa, maadaama ay dhakartoodii qaabka darnayd ee jabhaddan argagixisada SNM ay ku fahmeen. ta kale runtii waxaan ka codsanayaa shacabka ku nool gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood, inay arrinkan ka banaan baxaan, ka mudaharaadaan, ka dhiidhiyaan, inay ka xun yihiin ay muujiyaan, ay mudaharaado kaga soo horjeestaan. maxaa yeelay ma waxaad haynaysaan keliya inaad diiwaangelisaan ama liisaysaan marba qofkii la dilo. idinkuma waxaad ka shaqaysaan xabaalaha mise meydida tirikoobtaan. waan ogahay in badan oo idinkeeda ka mid ah inay la yaabi doonaan hadallada aan ku hadlayo, in badanna inay raaci doonto waan ogahay, balse xaqiiqdu waa lama huraan. siiba dhalinta waxaan fariin gooni ah ugu dirayaa inay arrinka ka wada istaagaan, waayo mustaqbalka dhow waxa dalka u haraya waa iyaga. go-aanka iyo taladana aysan ku hadlayn odayaasha. ta kale aan raba inaan ka yar hadlo waxa weeye, saan wada ogsoonnahayba gobolka Sool waxaa laga musaafuriyey dhowaan qoysas gaaraya 3,000 una dhashay koonfurta Soomaaliya. qoysaskaas ee jabhadda argagixisada SNM ku eedeysay inay lug ku leeyihiin ama kaba dambeeyaanba dilalka ka dhaca Laascaanood. haddaba waxaanu ogsoonnahay
intii la musaafiriyey dadka masaakiinta ahaa dilkii saddexaad inuu yahay. waayo maalin dhaweed waa ogeedeen cabdiraxmaan in lagu dhaawacay lana doonaya in saydigii lagu dilo meesha. haddaba jabhadda SNM waxaan leenahay dilalkan dambe ee ka dhacaya gobolka Sool yaad ku eedeyn doontaan. waayo hadda gobolkii waxaa wada jooga waa dadkii u dhashay ee dhulbahante iyo qeybo ka mid ah argagixisada SNM oo marti ku ah. xaqiiq waxaan aaminsanahay dilalkan dhacaya gobolka Sool hadduu qof dhulbahantaa geysan lahaa in la wada garan lahaa. haddaba fariintaan u dirayo jabhadda argagixisada SNM waxay tahay in ay caddeeyaan dilkan inay iyagu ka dambeeyaan ama ay keenaan, waayo gobolka iyaga hadda mas-uulka ah ciddii ka dambeysay. runtii waxaa wax laga imaada ah, wax laga dhiidhiya ah in maalin walba lala baxo ama la dilo qofkii ku jiray ummadda qofkii ku jiray gobolka Sool. إن شاء الله بإذن الله الكريم أنا كان كم ظهراتنا كم بديدين أدو الله ود لسورة قليل بإذن الله وبرحمته سيداي النبي.